maalinta ciida booyada la geliyaa islaamo qashinka ururiya la geliyaa qashinka iyo wixii laga goraa maalinta ku xigta hadana sidii bay tahay marka waxaan oran lahaa inaynu meel qurux badan sameysano runtii garoonka Boosaaso waa runtii meelaha kamida dadku ay wada leeyihiin oo ama Soomaaliya heer Soomaaliya ha noqoto ama heer gobol ama heer maamul maanta garoonka Boosaaso dayax xoogan ayaa ka muuqda waxaan oran karnaa garoonka magaalada Boosaaso wuxuu ka mid yahay meelaha laga qiyaasayo magaalada Boosaaso muuqaal ahaanteeda waa magaalada ganacsiga Puntland ahna hooyada dhaqaalaha Puntland anigu garoonkan taariikh gaar u leeyahay waa soo maray ku soo ciyaar horaantii sagaashamaadkii sidaan waa ka qurux badnaa maanta maalintaas uu qurux badnaa oo waliba maalintaas dadku ka tabar yaraa hadii garoonka magaalada Boosaaso marka la yimaado lagu arko inuu yahay meel ay habeenkii oo kale maaragtay lagu qashin saaro ama kaadi loo adeegsado ama saxaro loo adeegsado ama qashinka meelaha mararka qaarkood ku dhaca oo ku xiroodo ama gaadiidka lala galo albaabadiisana ay jaban yihiin darbiyadiisa ay jabeen waxa noqon kartaa qofka Boosaaso ku cusub inuu ka ogaado muuqaalka rasmiga ah ee Boosaaso waayo garoonka Boosaaso wuxuu ka mid yahay goobaha bulshada isugu imaanayaan oo soo saari kara jiil runtii caafimaad qaba wadogto maanta qaranka Soomaaliya dib loo yeelaya si loo helo marka qaranka cid ina matasho oo ama heer gobol iyo heer qaran bay nooga qayb gashaa garoonku waa meel ay ka soo bixi karaan waxay marka qiimo dilaysaa ama ay dareensiinaysaa inaanay u naxayn ama u dirnaxayn dadka magaalada deganaa haddii ahaan lahayd ganacsatada haddii ahaan lahayd muwaadiniinta kale ee shacabka haddii ahaan lahayd dawladda ama maaragtay local government ka jirta dawladda hoose ee magaalada Boosaaso ee responsibility-gooda ahaa garoonka Boosaaso wax badan oo baahana waxaan isleeyahay qurxin ka sokow shirkadaha deegaankan degan magaalada degmada Boosaaso degan wax way ka qaban karaan maanta waxa tusaale inoo ah ku amaanaya Jubbaland oo maamul ahaan Puntland ka dambeysay garoonkeedii wax yar oo aan isleeyahay bila gudahood ba kaarbid loogu dhigay hase ahaatee waxaan kulli isleenahay tabarba meesha doonta hadhigtee kulli oo fikirka waxa idin la keeno ganacsatada loo bandhigo Boosaaso 1 milyan oo qof ku dhawaad baa jooga $1 hadii lagu qori lahaa guri kasta ama $3 lagu qori lahaa oo la yiraahdo bisha markay dhalato keen loo diro dadkan dad gudi loo xilsaaro oo loo diro waxaan filayaa bil gudaheed bay garoonkaas waxaanu ka dhigi lahayn garoomada ugu quruxda badan Soomaaliya ama Afrika baa tartama Boosaaso oo aan oranay kuma faanayo aan oranay way ka dhaqaale badan tahay Kismaayo iyo Jubbaland oo ah magaalada labaad ee ganacsiga Soomaaliya in garoonkeedu sida u dayacnaado dadka Soomaaliyeed ee reer Boosaaso ma istaahilaan marka waxaan ugu baaqi lahaa ganacsatada gaar ahaan shirkaduhu maanta waxay hayaan dhaqaalihii dalka ما شاء الله وشغالين إلى حوله وبركة وحالا إن ذلك دي وحلو عليه. شركة جناح التلفون هذا وحنكون دي رجلها أنا أكون فران أو يعني أنت أكون دي رجلها يعني تذكر هيربوس ده سبورتي هانجر ذلك دي بدي سكون مقال وحن قوانين كلمة كقاطان